dhammaan Soomaali weyn waxaan rabaa arrintii aad igu ogeedeen ee fanka inaan soo gabagabeeyay. mid ka mid ah fanaaniinta mugga weyn ku leh fanka Soomaaliyeed ee maanta ayaa shaaciyay inuu guud ahaan joojiyay heesihii uu soo qaadi jiray, sidoo kalena waxa uu dalbaday in heesihiisa laga saaro dhammaan YouTube-leyda. haddaba fanaanka Siciid Taariikh oo ay dad fara badan si weyn u taageeri jireen ayaa sidaasi shaaciyay. haddaba daawadayaal, muuqaalkan waxaynu idinkula wadaagi doonaa qisada rasmiga ah ee ka dambaysa in fanaanka Siciid Taariikh uu guud ahaan fanka isaga baxo. waxaynu wada ogsoonahay in Ilaahay hanuunka leeyahay, hase yeeshee qof walba ay jirta sabab ay ku soo hanuunto. haddaba fanaanka Siciid Taariikh oo aynu qadka taleefka kula xiriirna qaybo ka tirsan asxaabtiisa u dhadhow ee iminka kula sugan magaalada Nairobi ayaa nala wadaagay qisadan argagaxa leh oo qof walba oo Soomaaliyeed marka uu maqlo ka yaabisii doonto. waxa aana marka aad dhageysato qisadani ay ku tusinaydaa adiga taageeraha u ah fanaanka Siciid Taariikh in aadan mar dambe daarin heestiisa si aad uga badbaadiso dhibaatadan mugga weyn leh ee fanaanka lagu tusay riyadiisa. haddaba inta aan u galin qisadan la yaabka leh, haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee janaalkeena, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aynu soo gelino. fanaanka Siciid Taariikh waxa uu ka mid yahay fanaaniinta dhalinyarada ah kuwaasi oo kasoo shaac baxay magaalada Muqdisho. Siciid Taariikh waxaa lagu tiriyaa inuu yahay mid ka mid ah fanaaniinta ugu codka badan magaalada Muqdisho, hase yeeshee heesihiisa oo aan badnayn awgiis kuma lahayn magac sidaas u weyn bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. marka loo fiiriyo fanaanka Qadar Keyo iyo Dayaxda Nuurshe oo lagu xanta in labadoodaba uu kocod macaan yahay, hase yeeshee uusan magac ahaan ka sarreyn. taasina waxaa sababtay intii uu Siciid Taariikh ku jiray fanka inuusan garab istaag buuxa helin. haddaba daawadayaal, ma doonaya barnaamijka inaan kaga hadlo fankii Siciid Taariikh iyo siduu ahaa. waxaana ogahay dad fara badan oo Soomaaliyeed oo aad u jecel dhageysan jirana inay xogtiisa hayaan, hase yeeshee waxaan barnaamijkan uga hadli doonaa riyadii xanuunka badnayd ee bedeshay noloshii Siciid Taariikh uu muddada dheer ku jiray, xoogga iyo hantidaba uu ku soo bixiyay, taasi oo maanta ka dhigtay inuu gebi ahaanba joojiyo bulshada Soomaaliyeedna uu ka codsado in aysan dhageysan heesihiisa. haddaba daawadayaal, inta aan idinla wadaagin riyadan xanuunka badan, marka hore aynu isla daawano muuqaal uu fanaanka Siciid Taariikh bulshada Soomaaliyeed ugu shaacinayo in gebi ahaanba uu ka fariistay fanka. bismillaah, halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta muuqayga iyo maqalkayga taqaana. waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum. waxaan rabaa inaan arrin aniga igu soo kordhay nafsigan Siciid Taariikh ahaan inaan idinla wadaago dhammaan ummadda Soomaaliyeed. dhammaan Soomaali weyn waxaan rabaa arrintii aad igu ogeedeen ee fanka inaan soo gabagabeeyay gebi ahaantiisa waan iskaga baxay. runaantii arrintaas go-aankaasna waxaan rabtaa inaan ku dhaqaaqo. runaantii aad ugu faraxsanahay, waana ku qanacsanahay. hanuunkana rabbi baa iskale, ilaahay ayaa mahadis kale u sugnaatay. waxaan rajaynayaa in aad daawatay muuqaalkan ayna ku caddaatay in fanaanka Siciid Taariikh uu isaga baxay fanka. haddaba daawadayaal, waxaynu u gadagalaynaa qisada xanuunka badan taasi oo ka dambayday in fanaanka Siciid Taariikh uu joojiyay gebi ahaanba fankiisa. haddaba sidaynu wada ogsoonahay, fanaanka Siciid Taariikh waxa uu ku noolaa muddooyinkii ugu dambeeyay waddanka Kenya, isagoo markaasi halkaasi u tagay siduu u hormarin lahaa fankiisa. haddaba daawadayaal, beddelkeeda maxaa dhacay? miyay riyadaasi u rumowday mise waxaasi oo idilka duwan ayaa halkaasi ka dhacay? haddaba daawadayaal, fanaanka Siciid Taariikh ayaa wuxuu muddooyinkii ugu dambeeyay diyaarsanayay heese aad u mug weyn, kuwaasi uu doonaya inuu fankiisa sare ugu qaado. waxa uuna ku gudan jiray diyaarinta heese waaweyn, kuwaasi uu doonaya inuu dib ugu soo laabto masraxyada fanka Soomaaliyeed, rabayna in saaxiibadiisii fanaaniinta ahaa kuwaasi uu kaga yimaaday magaalada Muqdisho in isbeddel ka duwan iyaga uu sameeyo, fankiisana uu ku hormariyo waddanka Kenya. haddaba daawadayaal, riyadaasi ayaa beenowday kadib markii fanaanka Siciid Taariikh habeenada ka mid ah la tusay riyo aad u xanuun badan. riyadaasina waa midda bedeshay qulubtiisa. haddaba fanaanka oo xilli dambe magaalada ka imaaday, sida aynu wada ogsoonahay, xilliyadan dambe dhalinyarada iyo sidoo kale fanaaniintu waa ay dhafraan maadaama inta badan ay u badan yihiin isticmaalka dhanka baraha bulshada. taasina waxa ay sababtaa in dhalinyaradu xilliyada dambe ay seexdaan. haddaba fanaanka oo daalanaa kana soo xarooday magaalada ayaa waxa uu seexday habeenkii xilli dambe, waxayna saacadu ku beegnayd 8 habeenimo.
haddaba xilligaasi waxa uu ahaa saq dhexe ama saamaleylka xilliga aynu u naqaano. daawadayaal, arrin mucjiso leh ayaa fanaan ka qabsatay kadib markii ay u bilaabatay riyo aad u xanuun badan. haddaba fanaanka ayaa markii ugu horreyda waxaa laga qaaday ruuxda waxaana la geeyay meel mugdi ah, taasi oo ay ku sugan yihiin dad wata maryo aad u cadcad. fanaanku waxa uu dareemayay inba xaaladda kasii dambeyday lasii gelinaya meel mugdi ah. ugu dambeyn waxaa la geeyay goob god ah. runtii sida ay xaaladdu wax u dhacayaan waa qof dhintay oo la aasayo oo kaleete. isagu ma lahan awood uu ku hadlo, ma dhaqdhaqaaqi karo, keliya waxaa xawila niyadiisa, xibnihiisuna waxa ay yihiin kuwo aan dhaqaaqi karin. runtii waxaa loo geliyay maro aad u cad, wejiga iyo afka iyo meel walba ayaana looga daboolay ilaa iyo lugaha, waxaana la seexiyey godkii. haddaba waa laga soo tegay oo dadkii waday waa ay ka soo tageen, waana ay ka dhaqaaqeen ilaa iyo intii uu ka maqlayay shanqartooda. waxaa bilaabatay wixii xilligaasi ka dambeeyey riyo aad u xanuun badan, taas oo fanaanka ku sababtay ugu dambeyn inuu hurdadiisa ku qayliyo. haddaba daawadayaal, waxaa godkii uu fanaanku ku jiray labada gees ka soo baxay 2 mas, kuwaas oo aad u waaweyn. haddaba labadii mas ayaa waxa ay bilaabeen in ay ku dul socdaan jirkiisa. ma lahan Siciid wax awooda uu ku dhaqaaqo, keliya waxa uu awoodaa inuu indhaha ka fiirsado. wadnihiisu sida uu sheegay waxa uu boodboodayay si xawaare leh, waxauna daqiiqadba daqiiqada ka dambayso eegayay masaska. ugu dambeyn sidii ay usoo socdeen waxa ay imaadeen madaxiisa sare, waxa ayna ka kala istaageen labada dhinac iyagoo markaasi u soo dhowaanaya. waxa ayna xaaladdu sidaasi ahaato. ugu dambeyn labada dhagood ayay kaga soo dhowaadeen iyagoo markaasi carabkii dheeraa ee masku u lahaa ka geliyey. halkaa fanaanku waxa uu dareemay xanuun aad u weyn oo run ahaantii uu adkaysan kari waayey. waxa uuna bilaabay in uu aad u qayliyo qaylo aad u dheer. dhalinyaro qolka la joogtay oo markaasi la hurdaysay ayaa durbadiiba hurdadii kasoo baraarugay. fanaankiina waxa uu kasoo booday sariirtii uu saarnaa, waxa uuna ku sigtay inuu iska tuuro, iyadoo markaasi dhalinyaradii oo ka hor kacday ay qabteen. isdeji ayay ku dhaheen, sariirta ayayna ku celiyeen. acuudu bilayso iyo hadalla markaasi lagu dejinayay ayaa fanaanka durbadiiba lagu bilaabay. dadkii dariska ah ayaa xitaa qaylada maqlay, wayna yaabeen, waxayna is yidhaahdeen maxaa ku dhacay dhalinyaradan. haddaba meeshii oo idil ayaa la isku soo baxay, xitaa carruurtii dariska ayaa soo kaceen maadaama qaylada uu qaylinaya ay ahayd mid aad u sawaxan badan. haddaba dhalinyaradii ayaa waxa ay goosteen in dadka ay kala seexiyaan, fanaankana ay si gooniya ula tashtaan. haddaba fanaankii ayaa uga sheekeeyey qisadii xanuunka badnayd ee uu la kulmay. dhalinyaradii waa ay yaabeen, xitaa iyagu waxa ay dareemeen xanuun fara badan maadaama waxaanu iminka uu ku jiray ay ku dhiiragelin jireen, saaxiibna ay kula ahaayeen. hase yeeshee marka ay dhib dhacdo dadku isku wada qalbi maahan oo qaar ayaa u fakaraya dhanka wanaagga. waxayna bilaabeen dhalinyaradii in ay runta u sheegaan Siciid, oo ay ku dhahaan dhibtani waxay kaaga imaatay fanka aad ku sugan tahay. waxa dhagaha ay masaskani kaaga gelayeen waa dadka oo aad maalin walba dhagahooda hees ku shubto. subxaan allah. haddaba fanaankii ayaa halkaasi waxa uu go-aan kula gaaray dhalinyaradii, waxayna go-aansadeen inuu guud ahaanba isaga baxo fanka. alxamdulilaah ayaynu leenahay, waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed maadaama walaalkan ilaahay uu tusiyey hanuunka. waxaana leenahay ilaahay hanuunka ha kugu hayo. haddaba daawadayaal, adiga dhagaysta ah maxaad qisadan ka fahantay? waxa ay tahay inaad walaalkaa maanta u horseedin dembi. ha dhagaysan heesihiisa. waxa ay masaskaasi dhagaha ummadda uga gelayaan waxa ay tahay inuu dhagahooda ku shubay hees. taasina waxa ay ka dhigan tahay inaad maanta adigu ka badbaadi karto walaalka inuu cadaab mutaysto. waxaana ku leenahay fadlan walaal ha dhagaysan heesihiisa oo isku day inaad ka fogaato. haddaba daawadayaal, waxaad inla daawataan kilib kale fanaanka oo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaya inaysan dhagaysan heesihiisa. waxaan rabaa inaan idin ka codsado asxaabteyda qiimaha badan oo muddada aan fanka kusoo wada jirnay youtube-leyda weliba inay heesahayga iska saaraan. waan ka codsanayaa fadlan, ilaahay dartiisa ayaan uga baxay fankan. idinkana waxaan idin ka codsanayaa ilaahay dartiisa inaad maaragtay iga saartaan youtube-yada heesahayga ku jira, oo maaragtay ilaahay maaragtay meel kale idinka siiyo. idinkana idin leeyahay waxaan rajaynayaa inaad daawateen kilibkan aadna aqbali doontaan dalabka fanaaniinta. sidoo kale dhalinyarada youtuberada inta aan garanayo waan la xiriiri doonaa. inta kalena waxaan ka codsanayaa in fanaanka heesihiisa ay ka dileed gareeyaan kana saaraan dhammaan youtube-ka. waxaana leenahay Siciid Taariikh garabkaaga allaha galo. waxaa tahay nin dhalinyaro ah
nolosha qeybo badan oo kamid a ayaad wax ka qabsan kartaa. Fankan waynu kaaga ducaynaynaa, ilaahayna dib kuguma soo celiyo. Haddaba daawadayaal, halka aad warbixintani kala socotiin waa janalka Haldoor Media. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horreysay ee janalka, fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarato si ayna kuu dhaafin muuqaalada iyo warbixinada halkan aan soo gelino.